marka baaritaanku wuxuu sheegay wax iska cusub maaha, waa wax la filayay oo badanaaba caadada bini'aadanka lagu yaqaano. Imisaad aragtay iyadoo uu qofku u sheekeynayo uu inta badan ka sheekeynayo dad kale jeebkooda waxa ku jira, hebel ma ogtahay inta soo gasho, intaasoo guri ayuu leeyahay ama intaasoo lacag ayaa bangiga ugu jirta. marka isku mashquulinta inay isku mashquuliyaan dadka kale jeebkooda waxa ku jira ay u barbar dhigaan kooda waa wax iska dabiici ah oo jira, laakiin waxaa markaa arrintaa ka dhalanaya in qofkii uu ku wareero oo waxa uu haysto isaga markaa jeebkiisa ku jira uu arki waayo oo ama uu ku qanci waayo wixii ilaahay siiyey ayaa markaa ka dhalanaysa. dadka markaa oo lacagta lehna waxaad moodaa iyada maskaxdooda markay guud ahaan la fiiriyey iyagana waxaa la ogaaday inay og yihiin in markaa dadka kale ay fiiriyaan. saa daraaddeed markaa waxay keenaysaa iyagana inay maintain gareeyaan, isku dayaan inay maaragtay waxay haystaan ay soo bandhigaan oo ay dadka sii wareeriyaan, xataa ay yidhaahdaan ma aragtay uga sheekeeyaan dadka intaasoo faa'iidaan helay, businesskaasaan bilaabay, intaasoo faa'iida iga soo baxday, intaasoo milyan oo dollarba accountka iigu jirta, waxyaabaha noocaas oo kale ah. taas marka waxay keenaysaa psychology ahaan iyaga naftooda inay rabaan in lagu mashquulo, inay rabaan oo la ogaado. marka caafimaad ahaan iyagana pressure ayaa saaran oo ay mar walba inay maaragtay dadka u tusaan inay lacag leeyihiin. waxaa dhacda marmarka qaarkood inay xataa ay wax soo deynsadaan oo ama maaragtay baabuur cusub oo deyna inay soo qaataan, marka dadkii waxba kama oga. marka weligaa haddaad markaa aragtid qof aad moodid inuu xoga kaa lacag badan yahay ama materialka uu haysto oo adiga aadan haysanin, ma ogid xaaladiisa, lama socotid meesha uu ka keenay, inay deyn tahay, in ma aragtay uu waxaan lacag u shaqaystay inay tahay, lacag la siiyey inay tahay, waxaasoo dhan ma garan kartid adiga. marka inaad isku mashquulisid oo aad adiga taadii aad ma aragtay noloshaadii ay ku burburto waa laga fiican yahay. caafimaad ahaan marka labada qof, kan lacagta leh iyo kan fakriga ah, waxaa xoogaa aad moodaa inuu caafimaad badan yahay hadduu ku qanco intuu haysto. kan wax yar haysta ayaa mar walba aad moodaa inuu caafimaadkiisa badan yahay. waxaa dhacda dadka lacagta leh hadday ay lacagtoodii ay waayaan ama ay kacaan oo businesskii ka dhammaado, iyaguna inaanay marnaba noloshii hoose aanay la qabsan karin. marka taasaa maxay keentaa marmar inay noqdaan dad isticmaala waxyaabahan mukhaadaraadka ama daraagiska isticmaalaan, ay qaarkood u dhintaan. inta badan dadka lacagta leh waxay noqonayaan dad actresska ah ama ma aragtay entertainment businesska ku jira ayaa ugu lacag badan baa la yidhahdaa. haddaad sii fiirisay noloshoodana waxaad moodaa noloshooda in ma aragtay ay nolol misri ah oo xanuun badan inay ku nool yihiin, qaarkood inay isdilaan, qaarkood ay u dhintaan overdose, inay daraag badan intay isticmaalaan ay markaa u dhintaan ayaa laga yaabaa ama inta badanba dhacda. qofkii marka aan waxba haysanin isaga psychology ahaan isaga dhibka u badan uu soo gaari karo waxa weeyaan waa inuu isagana ma aragtay uu qanacaad la-aan inay ku dhacdo oo uu markaas mar walba uu noloshii uu naco. laakiin haddii uu very simple ma aragtay uu hoos fiiriyo uu yidhaahdo okay, intaan anigu aan haysto waa inta ilaahay ii gartay ma igu filan yihiin, hadduu yidhaahdo waxaa iska dhacaysa markaas in caafimaadkiisi uu fiicnaado ayaa dhici karta. marka dadku hadday ogaadeen in happinesska ama farxadda nolosha aanay ku xirneen in uu qofku lacag leeyahay ama uu maal badan leeyahay, hadday ogaadeen, haddii la ogaaday in dadkii lacagta lahaa naftooda ayn weli happy ku ahayn noloshooda, haddii la ogaado, waxaa marka taas laga garanayaa in happinesska ama maaragtay qanacaadka uu ku xirneen waxyaabaha uu qofka haysto materialka aanu ku xirneen ee qofku maaragtay siduu isagu u qanco ay ku xiran tahay. taasaa meeshii ka cad. marka waxaa wanaagsan in qof walba uu happy uu iska noqdo, noloshiisa uu ku qanco. sidaad la socotaa noloshu waa iska kooban tahay. marka inta yara aad nooshahay in aad stress badan ku noolaato oo ma aragtay adoo waxaadan gaari karin intaad isku daydid inaad gaarto, waqti badanna kaaga dhumo oo noloshaadii crisis ma aragtay badan iyo dhibaato badan oo culeys badan marka soo koro, waxaa ka wanaagsan in ma aragtay dee adoo intaa yartaa aad haysidna inaad ku qanacdid. dee haddii dadaal aad samayn kartid oo qof dadaal badan haddaad tahayna, dee iyadu lama diidana inaad dadaal samaysid oo isku daydid inaad gaartid dadka kaa sarreeya, laakiin noloshaadii inaad happy marka hore ku ahaato ayaa ka horeysa. sababtoo ah haddaadan happy ahayn xataa wax kugu qabsoomaya ma jiraan. su-aasha ugu weyn oo ay dadku isweydiiyaan oo inta badan soo noqnoqota ayaa waxay tahay isbedelka ku dhaca qofka markuu ay noloshiisu ay hore u marto ama heerkii markaa uu joogay inkamkiisii markuu bato ama uu isagoo markii hore aan waxba haysanin successful intuu noqdo uu wax yeesho. isbedelka markaa ku dhaco ay dadka ka dareemaan ayaa waxaa la isku dayay in la ogaado bal arrinta wax ka dambeeya oo dadka sababta isu bedelayaan. soomaalida aad bay uga hadashaa arrintan oo marmarka qaarkood dad badan oo waxaad arkaysaa wadankii jira
dadka markaa aad la hadashid ama ay kula soo hadlaan waxay kaaga cawanayaan ma kaaga dacwoonayaan dadkii walaalahooda ahaa ama qaraabadii ahaa oo kasoo tagay wadanka dhibaatadii ay ku jireen kasoo baxay hadda markaa qurbaha intay yimaadeen xoogaa nolol fiican helay isbedelkii ku dhacay oo sidii hore iskuma nihin waxaad arkaysaa qof saaxiibo aad aheedeen oo isku meel kusoo korteen aad wax walba wada wadaagi jirteen ayaa waxaa laga yaabaa inuu markuu kasoo tago wadankii uu meelaha yimaado uu maaragtay hadalkiisii kaa gaabsado ama uu sidii la rabay aanu kuu xiriirinin ama ballamo badan uu kaa qaaday uu kaaga baxo marka arrintaas marka waxa ay maaragtay kuwan psychologist-ka ay ogaadeen baaritaan kale ay ku ogaadeen process ayaa ka horeeya intaanu qofka waxba yeelan ka hor marka si uu qofka uu wax u yeesho waa inuu marka hore wixii uu ku jiray iyo noloshii uu ku jiray inuu ka baxo waxyaabo ku qasbaya ayaa jira hadday noqon lahayd inuu iskuul aado marka iskuul haddaad aadido jaamacad arabti inaad aado waa inaad markaa ka tagtaa dadkii maaragtay qaraabada ahaa oo goolkooda inay iskool aadaan aanay ahayn so waxaa markaa la xiranaysaa dadkii maaragtay isku goolka aheedeen kadib macallinkii ama professorkii ayaa wuxuu ardadii ka dhaadhicinayaa haddaad rabtid inaad successful noqotid waa inaad ka hartaa ama aad iska ilowdaan nolosha tii hore aad kusoo kortay maxaa yeelay way kula haraysaa ayaa laga dhaadhicinaya saas darteed marka qofkii mentalitygiisii wuu isbedelayaa tartiib buu isu bedelaya moor uu markaa qofkii sii lacagaysto waa moor uu dadkii iyo inuu ilaawo meeshuu ka yimi asalkiisa iyo maaragtay dhibaatadii uu soo maray dadkii isla soo koreen ama dhibaatada isla soo mareen inuu garan kari waayo ama uu xiriirin kari waayo waxaa keenaya ayay yidhaahdeen marka waa arrin iska la yaab leh tusaale ahaan waxay u soo qaateen nin dhallinyaro ah ayaa wuxuu soo galay qol oo 3 dabaq ama 4 dabaqa marka dabaqa ugu hooseeya waxaa jooga dadkii isaga isku gruubka ahayeen oo cabaadayay oo maaragtay xanuunsanaa ama maaragtay dhibaatada gaajaysnaa ayaa markaa jooga marka wuxuu isku dayay inuu koro dabaqi kore oo xoogaa wuxuu arkay dadka kore inay xoogaa ka inay ka degan yihiin cunto fiican haysta oo iska baashaalaya inay yihiin ayuu arkay kor buu damcay markaa inuu aado marka waxaa leeyahay waxaa ka hor imaaday shaydaan the devil oo ay ku tilmaamaan shaydaanka ayaa ka hor imaanaya oo istaajinaya albaabka ku reebaya markaasuu leeyahay xaggee u socotaa weliyo waxaan u socdaa buu leeyahay kor baan u socdaa nimankaasaan rabaa inaan aado meesha kuwaasaan rabaa inaan ku biiruu leeyahay markaasa waxaa leeyahay waa ku ogolaanaynaa laakiin waa inaad wax maaragtay adiguna waa inaad sacrifice samaysid wax aad annagana noo samaysid markaasuu leeyahay waa samaynaya maxay markaasaa la leeyahay maaragtay dhagahaaga baan waxaan kugu bedelaynaa dhago maaragtay cusub ayaan kugu bedelaynaa so this time marka qofka dhagihii baa looga bedelayaa wiilkii kor buu aadayaa wuxuu marka dhagahan uu hadda cusuba u helay ma maqlaayo cabaadka dadkii ka hooseeyey dabaqii hoose deganaa ma maqlaayo markaasuu iska ilaawaya ma maqlaayo cabaadkooda ma maqlaayo wuu arkaa laakiin cabaadkooda ma maqlaayo kadib buu haddana isku daya dabaqii saddexaad inuu aado markaasaa waxaa leeyahay sidoo kale waxaan kaaga bedelanaynaa baa leeyahay indhahaaga so haddana markaa wuxuu galayaa dabaqa kasii horreeyey marka waxna ma arkaayo dadkii ka hooseeyey mana maqlaayo kadib marka dabaqa afraad uu damco inuu yimaado baa waxaa leeyahay waxaan kaaga bedelanaynaa maaragtay memorygaaga xusuustaadii ayaan xusuus kale kuugu bedelaynaa macnaheeduna waxa weeyaan in maaragtay ilaawo inuu dhibaataba soo marayba inuu ilaawo so marka 3 dabaq 4 dabaq kadib qofkii ma maqlaayo wixii ay dadkii uu kasoo tegay ku sugan yihiin ma maqlaayo mana arkaayo mana xasuusanayo marka taasaa marka waxoogaa waxaa waa isbedelka marka oo isbedelka uu isbedelayo horumarka qayb ka mid ah weeyaan uu qofku wax moral ah waxyaabo maaragtay aan fiicneen inuu ku bedesho wixii marka adduunyada ahaa inuu ku bedesho macnaheeduna waxa waaye in aad hore u martid macnaha waa inaad dad kale saaxiibo cusub ay yeelatid waa inaad maaragtay dad kula leebala aad la sheekaysatid so macnaha uu ku keenayo malaha markaas sida maskaxdooda iyaga maaragtay u shaqaynayso inuu gadaal u laabto oo u yidhaahdo okay ninkii saaxiibkay ahaa oo hoos joogay baan rabaa inaan maanta waqti la soo qaato because waqti ma uu hayo isbedelkii uu sameeyey darteed taasaa marka waxay keenaysaa in maaragtay in horumarka naftiisa inuu isbedel weyn oo xagga maskaxda ah inuu keeno ayaa la ogaaday isbedelka xagga maskaxda ah inuu keenayo horumarka oo maaragtay qofkii ku dhacayo marka macnaha waxa waaye in wuxuu ku bedeshay wuxuu moralkiisii iyo wixii isagii oo fiicnaa ama wixii uu isdhahayay qaraabadii xiriirii iyo ma aragtay dadkii waxtar dadkii ka warqab aad ka timi meesha aad ka timi dhibaatadii waad og tahaydii waxa uu ku gadanayaa inuu isaga horumaro sababtoo ah waxaa lagu qasbayaa oo systemka ku qasbayaa inuu marka hore xagga iska soo dhigo waxaasoo dhan markaas ayaa isaguna uu hore u maraya so maadaama ay ku xiran tahay markaas taasaa marka keenaysa in dadkii ay dadka gooyaan ama ay ka gaabsadaan ama aanay isla jaan qaadin dadkii ay isla soo koreen maadaama uu qofkan isbedelay xataa iyadoo qofkii ay isku magaalo joogaan haddii qofka kale uu maaragtay umar lacagaysto dad badan baad arkaysaa kula hebel ayaamahan salaanta igama qaado ninkii wuu lacagaystay maba isnaqaano oo kale marka qaladku isaga ma laha maskaxdiisa say u shaqaysaa isbedelayso marka successkii iyo maskaxdii ayaa